ciidamada militariga Somaliland oo howlgallo dhinaca amniga ah ka wada gobolada Awdal iyo Salal ee galbeedka Somaliland. Siciid Cabdulaahi Dani oo tallaabo uu qaaday ka caraysiisay Galmudug. Maxay tahay tallaabadaasi? warkeena ayaa kaga bogan doontaan haddii eebaydmo. ciidamada Somaliland ayaa waxa ay qaadeen howlgallo dhinaca amniga ah oo lagu xaqiijinayo amniga gobolada Awdal iyo Salal ee galbeedka Somaliland, halkaasi oo ay ku qabteen hub iyo gaadiid gaashaaman oo ay haysteen dhinacyada ku dagaalamaya ama ku lugta leh colaadda beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya galbeedka Somaliland. ciidamada ayaa intii howlgallada ay wadeen waxa ay gacanta ku dhigeen hub iyo gaadiid aad u tiro badan oo ay sheegeen in si sharci darro ay u haysteen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada galbeedka Somaliland. taliska ciidamada Somaliland ayaa sheegay inaan loo ogolaan doonin dadka shacabka ah in ay si sharci darro ah u haystaan hub iyo gaadiid gaashaaman oo ay ku dagaalamaan, iyagoo xusay in tallaabo cad ay ka qaadi doonaan cid kasta oo lagu arko hub sharci darro. saraakiisha ciidamada ayaa sidoo kale sheegaya in marar badan ay bulshada uga digeen in ay qaataan ama ay wataan hub sharci darro ah oo dowladdu aysan ogeyn, inkasta oo beelaha halkaasi ku dagaalamaya ay wataan gaadiid iyo weliba hubka sida darandooriga u dhaca intaba. Somaliland ayaa dhowr jeer hore isku dayday in ay arrimahani ay xaliso, hase ahaatee waa ay ku fashilantay, waxna waa ay ka qaban weyday. hase ahaatee hadda waxa ay dib u soo celisay howlgalladii dhinaca hubka dhigista. howlgalladan ayaa ku soo beegmaya kadib markii dhinacyada ku dagaalamaya Awdal iyo Salal ay jabiyeen heshiis nabadeed oo hore u gaareen, kaasi oo dhigayay in la ilaaliyo xabad joojinta isla markaana laga fogaado tallaabo kasta oo horseedi karta in dib ay u soo noqdaan colaadaha beelaha ee halkaasi ka socda. sida uu sheegayo heshiiskii hore, ciidamada ayaa waxaa loo xilsaaray inay qaadaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo nabadda oo ay ka mid yihiin in hubka dhigis lagu sameeyo dadka sida sharci darrada ah u haysta hubka, iyo weliba in laga hortago fal kasta oo dib loogu horin karo colaadda ka soconaysa galbeedka Somaliland. colaadda ka taagan deegaanada galbeedka Somaliland ayaa bilaabatay bishii Nofeembar ee 2025 kadib markii khilaaf ka dhashay bandhig la xiriiray buugga xeerka ciisaha oo ay beesha ciise doonaysay in lagu qabto magaalada Saylac, balse ay si adag uga soo horjeesatay beesha Gudabiirsi. khilaafkaasi oo markii dambe isku bedelay iska horimaadyo toos ah oo hubaysan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac baaxad leh oo soo kala gaaray labada dhinac, waxaana dhowr jeer la isku dayay in labada dhinac la kala dhex galo, balse waa lagu guuldaraystay. inkasta oo la gaaray heshiisyo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu soo celiyo nabadda iyo kala dambeynta deegaanka, haddana qaar ka mid a heshiisyadaasi ayaan sii waarin, iyada oo marar kale ay dib u qarxeen dagaalada iyo iska horimaadyada u dhexeeya dhinacyada ku diriraya gobolada Awdal iyo Salal. howlgallada cusub ee ciidamada Somaliland ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyaadka labada dhinac ee isku haya goboladaasi, isla markaana lagu xaqiijiyo amniga iyo weliba heshiisyadii nabadeed ee horey loo gaaray si khilaafka u dhexeeya labada beelood meesha looga saaro. xukuumadda Somalilandna waxay hore u sheegtay inaan loo dulqaadan doonin cid kasta oo isku dayda in ay dib u bilowdo dagaal beeleedyada inta muddada ah ka soconaya deegaanada galbeedka Somaliland, iyo weliba in aan beelaha halkaasi degan lagu arki karin gaadiid dagaal iyo hubka darandooriga u dhaca. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Danina waxa uu booqasho uu ku tegay deegaan ka mid a deegaanada Galmudug, taasi oo si weyn uga careysiisay dowlad goboleedka Galmudug. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa kormeer iyo shaqo waxa uu ku tegay deegaan hoostaga dowlad goboleedka Galmudug, waxaana ujeedka safarkiisu uu ahaa dadaalada lagu doonayo wax ka qabashada xaaladda nololeed iyo xoojinta nabadda iyo isku socodka iyo isku soo dhawaanshaha bulshada ee degmada Tawfiiq iyo deegaanada kale ee gobolka Mudug. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay in magaalada Garowe lagu qaban doono gogol nabadeed oo u dhaxaysa dadka walaalaha ah ee deegaanadaasi wada dega oo ay ka dhaxayso colaad aad u daran. waxaa kale oo intaasi uu ku daray in Puntland ay diyaar u tahay wax ka qabashada saameynta isbeddelka dhinaca cimilada ee deegaanka ka jirta, gaar ahaan bacaadka ku fidaya qaybo ka mid a deegaanadaasi. dhinaca kale arrintan ayaa waxa ay dhalisay falcelin xoogan, iyadoo siyaabo kala duwan looga falceliyey booqashada Siciid Cabdulaahi Dani uu ku tegayo deegaanada gobolka Mudug, iyada oo dadka qaar ay sheegayaan inuu u bareeray
dhulka dowlad goboleedka Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, horey mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa uga digay in Siciid Cabdulaahi Deni uu booqasho ku tago deegaanadaasi, balse dhagaha ayuu ka furaystay, waxaana maanta uu isku soo sawiray bacaadkii ugu ballaarnaa oo ku baahay qaar ka mid a deegaanada gobolka Mudug, taasi oo u baahan in wax laga qabto. daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkeennii oo aad kala socoteen Wama TV. fadlan daawade, haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada, ku soo biir channelka, subscribe noo saar, muuqaalka like garee oo share garee.